safiirka jamhuuriyadda Turkiga u fadhiya Soomaaliya ayaa ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xamse Cabdi Barre waxa uu kala hadlay muwaadiniin u dhashay dalkaasi Turkiga oo samafalayaal ahay kuwaasi oo dhawaan lagu dilay gudaha Soomaaliya. waxaan kula wadaagi doonaa kulanka labadaasi mas'uul waxyaabaha ay ka wada hadleen iyo waliba qodobo kale oo intaasi ka dheeraad soo dhawaada. ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa xafiiskiisa waxa uu kulan kula qaatay safiirka jamhuuriyadda dalka Turkiga u fadhiya Soomaaliya kaasi oo ay ugu horeyntii ka wada hadleen xoojinta iskaashiga labada dal ee walaalaha Turkiga iyo Soomaaliya. ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaana ugu horeyntii safiirka dalkaasi Turkiga u fadhiya Soomaaliya waxa uu kaga tacsiyeeyay muwaadin u dhashay dalkaasi Turkiga oo dhawaan lagu dilay gudaha Soomaaliya asaga oo gargaar qaybinaya kaasi oo dilkiisa la sheegay inay ka dambeeyeen kooxda ururka Al-Shabaab ay ka dagaalanta Soomaaliya. labada mas'uul ayaana sidoo kale waxa ay ka wada hadleen xiriirka iyo iskaashiga ka dhaxeeya labada dal iyo waliba sidii loo sii wadi lahay amaba ay u sii socon lahaayeen taageerada dawladda Turkiga ee la dagaalanka kooxda ururka Al-Shabaab ay ka siisay dawladda federaalka Soomaaliya. safiirka dawladda Turkiga u fadhiya Soomaaliya ayaa dhankiisa wuxuu ka ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo kaga mahad celiyay kulanka iyo waliba tacsidaas. waxa uu sheegay safiirku inay sii wadi doonaan gargaarka iyo garab istaagga dawladda federaalka Soomaaliya ay u muujinayso dawladda Turkiga. waxa uu sheegay in waxyaabahan yararka oo dhacaya ama ay geysanayaan kooxda ururka Al-Shabaab oo uusan wiiqi doonin xiriirka xooggan iyo iskaashiga ballaaran ee ka dhaxeeya dawladda federaalka Soomaaliya iyo dawladda Turkiga ee walaalaha. iskaashiga u dhaxeeya dawladda federaalka Soomaaliya iyo dawladda jamhuuriyadda dalkaasi Turkiga ayaa in muddo ahba soo jiray. waxaana la xasuustaa in dawladda Turkiga wajigii labaad ee dagaalka ka dhanka kooxda ururka Al-Shabaab ee wajigiisii koobaad aan niraahne ay ka qayb qaadatay si weyn ayadoona inta badan diyaaradaha lagu farsameeyo dalkaasi Turkiga ee Bayraktar TB2 ay kaalin mugle ay ka qaateen la dagaalanka kooxda ururka Al-Shabaab oo haatan dagaal xoogan ay kula jireen ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya oo kaashanaya kuwa dadka deegaanka ayadoona dawladda Turkigu ay tababar ay siiso ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya ayadoona tababarkaasi ku bixisay gudaha Soomaaliya iyo waliba dalka Turkiga oo ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya qaybahooda kala duwan ay halkaasi tababar ay ku soo qaataan. isbitaalka Dawo Clinic waxa uu ka mid yahay isbitaalada dabiiba xanuunada ku dhaca haweenka. adeegyada isbitaalka uu bixiyo waxaa ka mid ah daaweynta dhiciska, daaweynta dhalmo la'aanta, daaweynta infekshanka, daaweynta caado wareerka. sidoo kale isbitaalku waxa uu qabtaa baaritaanada hormoonada, daaweynta burobiyoodka iyo qaliimadooda, daaweynta kaadi baxsadka, socoshada hooyada uurka leh iyadoo lala talinayo lana daaweynayo. isbitaalka waxaa ka howlgasha Dictoraysa Qamar Taawane Axmed oo ku takhasustay cudurrada haweenka iyo qaliimadooda. isbitaalku waxa uu leeyahay kombiyuutarka uurka jirta iyadoo lala soconayo ilmaha caloosha ku jira caafimaadkooda. hamuugaan Dawo Clinic.